dad degan tuulo ka mid ah dalka Tanzania oo hal mar diinta Islaamka wada qaatay iyo sababta ka dambaysa in ay wada islaamaan dadkan. ashhadu la ilaha illa Allah. Si aan ugu dagalno muuqaalkan iyo qisada ka dambaysa in dadkan oo hore islaam u ahayn inay diinta qaataan hal mar. Walaalay saar muuqaalkan share gare naguna soo biir si saaxiibo badan muuqaalkan u gaar mahadsanidin badan. Culimada Islaamka ee diinta faafiya ee dalka Tanzania u dhashay iyo kuwa ajaanib oo iskaashanaya ayaa kulan wacdi ahaa oo ay ku qabteen tuulo yar oo ku taala dalka Tanzania isla markaana ay degan yihiin qabiilka loo yaqaan Masaayda ayaa dadkii kulankaasi oo dhami ku sugnaa waxa ay ku qanceen in diinta Islaamka ay qaataan kadib dood dheer su'aalo weydiin iyo jawaab celin kadib. Dadka tuulada deganaa ayaa waxay ahaayeen dad jaahiliin ah oo aan horay waxba u garanaynin, aqoon maadi ah iyo mid diini ahna aan lahayn. Kadib markii culimadani ay wacdiyeen isla markaana meelo badan wax ka tusiyeen, ay ku qanceen in diinta Islaamka ay qaataan, diinta saxda ahna ay tahay diinta Islaamka dadka muslimkaana ay haystaan. Inkastoo dadkan muslimka ah ee u dhashay dalka Tanzania ay haatan wadaan barashada diinta Islaamka iyo sidii ay ula mid noqon lahaayeen dadka Islaamka ee caalamka ku nool, maadaama aysan horay diinta u haysan, haddana waxaa aad loogu soo dhaweeyay qaadashada diinteena suuban ee Islaamka, isla markaana ay ku dhiirigeliyeen culimadii markaasi shahaatiinka u qabtay. Waxa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin qaadashadooda diinta Islaamka, isla markaana diinta Islaamku ay tahay diin farxadeed ayna leedahay dastuur aan qaldamin. Dad badan ayaana soo dhaweeyay dadkan halka mar diinta Islaamka wada qaatay ee u dhashay dalka Tanzania, gaar ahaan qabiilka loo yaqaan Masaayda oo qaaradda Afrika qaybo badan oo ka mid ah dega. Waxaana muddooyinkii dambe baraha bulshada ee waddankaasi iyo qaaraddaba qabsaday muuqaalada iyadoo shahaatiinka loo qabanayo dadkaasi dhowaan soo islaamay, isla markaana dadku ay markaasi ku dhiirigelinayeen in diinta Islaamka iyo shareecadeedaba ay bartaan. Daraasado la sameeyay muddooyinkii dambe ayaana waxa ay caddaynayaan in wadamada caalamka ay ka tahay diinta Islaamka diinta ugu qaadashada badan caalamka. ashhadu la ilaha illa Allah.